بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga ah halkaad nagala socotaan waa channelka youtube-ka aan ku leenahay ee Amman TV dhammaan waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caafimaad qab iyo cimri dherer ku noolaada caawa waxaan rabnaa inaan ka hadalno fariin caafimaad oo ku saabsan cudurkan adduunka wareeriyey ee wax walba burburiyey ee coronavirus coronavirus iyo fariintan caafimaad ee aan sidno marka ka hadalno waxa weeyaan dalalka qaaradda Yurub oo dhan dhammaantood waxay soo saareen digniino looga digayo dadka shacabka ah ama aadamaha in ay iska ilaaliyaan oo ay isticmaalaan siyaabooyin badan oo ay iskaga ilaalinayaan dhanka kale dowladaha qaaradda Yurub oo dhan waxay soo saareen in ay ganaaxyo ku dhufan doonaan dhowrkii qof ee si xooga marka iskugu dhow ilaa iyo mitir wax ka yar isku jira waxa kale oo ay sheegeen gaar ahaan dowladda Jarmalku in aanu ganaaxu qaban doonin labada qof guri wada degan iyo sidoo kale faamilka oo kale in aanu qaban doonin sharciga ganaaxu maxaa yeelay iyagu meel bay wada degan yihiin haddii xanuunka oo qof qaba qofka kalena wuu qabaa bay ka dhiganta sidaa darteed waxyaabaha aniga oo Soomaaliya runtii dalka Jarmalka degan aan la yaabay waxay tahay marka laga yimaado ajaanibta kale dadka Soomaaliyeed marka aad ku tiraahdo waniyo cudur xun baa soo galay dhulkii waxaana loo baahan yahay haddaynu dadka Soomaaliyeed nahay in aynu taxadirno is ilaalino digniinaha ay dowladda aynu ku dhaqanahay ama aynu deganahay dalkoodana ay noo soo jeedisay inaynu qaadano ama dhaqaatiirta caafimaadku digniinaha ay soo jeediyeen Soomaalidu marka ugu horeysa waxay la soo boodayaan oo ay ku oranayaan ilaahay baa jira waa run oo ilaahay baa jira waxay ku oranayaan annaga xanuunkan looguma talagelin waa runtii su'aalo yar oo la yaaba waa su'aalo aad la yaabaso 29 bishan Maaris ee hadda dhamaatay waxaan arkay 18 dhalinyar ah oo goob bas laga raaco ama meelaha boostada ee meelaha baska laga raacay hal tirsiyaado 18 dhalinyar oo afka isla wada galay oo Soomaaliya oo meel shaqo ka soo rawaxay runtii waan yaabay geefanka istaagay mid kamid ah ayaan u yeeray waxaan ku uri waniyo waxa weeyaan xanuun xun baa jira wad ogtiin xaaladdu halkay marayso xanuunka xunna iyo cudurrada xunna diinta islaamku in laga duceysto ama laga durko ama intii xitaa diinteenu waa qabta islaamku sidani miya fiicantaan ku uri aad afka isla wada gasheen xaaladdiinu ay marayso wuxuu ugu uri niyo waxa weeyaan waxaasi inaga leeynooguma talagelin waxaasi ilaahay baa jira inagu dad ilaahay la baynu nahay gaalada loogu talagalay wax noocaas runtii waxa weeyaan ilaahay waa jira ilaahayna waa ka keligii jiri doona waana xayul baaqi waana ka keligii hari doona laakiin baa jirta waxa weeyaan in sababta haddii aad sameyn weydo waxa weeyaan wax soconaysa maaha haddaba su'aalaha la yaab kale ee Soomaalidu ay ku dhawaaqaan marka la yiraahdo war heedhaha xaaladdaas jirta digniinaha iska soo daba dhacaya dhanka dowladaha iyo dhanka caafimaadka bood maqlaysaan balka digtoonaad waxay ku leeyihiin ilaahay baa jira waa run oo ilaahay waa jira xanuunka annagana looga talagelin meel bay shaah ka dalbanayaan meelaha kubashiinada laga cabo 15 baas ag fadhiisanaya telefoonada kala haday doonaan kala taabanayaan farahay way salaamayaan balaayi iyo baas waxa weeyaan xanuunkana magaciisa waxa la yiraahdaa coronavirus marka laga yimaado xambaar baa la yiraahdaa waa farta oo meel ku taabato oo aad si qaado oo aad wajigaaga taabato kaliya ka harsan waa inaad xirataa sida calaamada ka arkayso gacmo gashiga iyo bahasha afka lagu xiranayo sidoo kale waa inaad dadka mitir ka fogaataa waa digniinaha caafimaad ee dhaqaatiirta iyo dowladduba ay bixisay in aad mitir wax ka badan qofka aad ka fogaato in aad xirato gacmo gashiga inaad xirato bahasha afka lagu xiranayo aad arkayso iyo xitaa dukaamadii arladii waa wada xirantay ganacsigu waa burburay baraadii waa burburay hadaba su'aasha aanu soo noqdayaan ka gudbin macluumaadka aan ku socday Soomaalidu waxay ku oranaysaa hadalla aan macquul ahayn
waxay ku oranayaan ilaahay baa jira ilaahay anagu nala jira islaam baan nahay anagu waxaas inaguma dhacayaan anaga nalooguma talagelin 25 bay isugu imanayaan meel afka isla galaya hadaba mid baan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay hal mid baan leeyahay ummadan gaal iyo islaam bale ee aad arkaysaan ilaahay baa abuurtay horta ma jiro Soomaalidu markay leedahay anaga ilaahay baa na jecel iyo ilaahay baan abuurtay iyo ilaahay noguma talagelin waxaas wax macquul ma aha ilaahay waa mid jira ilaahay koonkan oo dhan isaga abuurtay gaal iyo islaam mid kale waxaan idin sheegayaa Daa'if markii nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu shiiday ee dhiigiisa dhulka la wariyay ee dhagaxda la dhacay dadkii la dhacay dad gaala abay ahaayeen dadkii Daa'if nabiyullaahi Maxamed ku shiiday isagoo diinta islaamka ugu yeedhay dadka arliga wada gaalay ahaayeen waynu wada ognahay watii labada malaa'igtii buuruhu inta yimaadeen rasuulka ay la hadleen ay ku yiraahdeen rasuulka ilaahay oo dadka sidan ku galay ma ku jiidnaa labada buurtan iyo buurtan isku soo qaadnaa ma ku dhufanaa maya buu rasuulku sababtu maya uu yiri maxay ahayd dadka dhabarkooda ku jira iyo rajo ka sugaya rasuulku dadkii diinta soo halgamay ee diinta maanta halka soo gaarsiiyay ahaa dadkii maalinta Daa'if ku shiiday gaaladii maalinta Daa'if rasuulku ku shiiday dadkii ay dhaleen weeyaan maanta dadkii diinta halka soo gaarsiiyay waa dadkii gaaladu ay dhaleen ee rasuulku malaa'igta ku lahaa ka daaya buuraha ku dhufaninay kuwa dhabarkooda ku jiraan ayaa ka sugayay kuwii dhagax la dhacay rasuulka ee gaalada kaafiriinta ahaa kuwa dhaleenba diinta halka soo gaarsiiyay marka ha oranina Soomaaliyay gaaladu ilaahay ugu tala galay waxaan oranina gaalada wadogtiin dadka islaamka ee ka soo baxa maalintii diinta islaamka soo galaan halkaan uma dhaqaaqaan wadogtiin diinta islaamka ugu dhaqmaan marka waxa weeyaan wada ogtiin macluumaadka ay soo saareen dhakhaatiirta caafimaadka ee qaarada Yurub kala duwan wad ogtihiin in xaaladdu halkay marayso xanuunka coronavirus inaad intaad maqaaxi soo wada fadhiisataan idinko 20 iyo idinko 35 inaad soo fadhiisataan oo aad gamcihiina maranaysa salaantaan oo aad xaaladdu waa xun tahay wala wada ogyahay dhibashadu inta adduunka marayso wala ogyahay sidaa haddana ay tahay waxa weeyaan dadka islaamka waa tirada ugu yar dadka Soomaalida ana waa tirada ugu yar wali inta aan maqlay 12 qof baa Sweden lagu sheegay oo Soomaaliya taasina waxa kalifaya isdhowrid la'aanta iyo iska sheekaysiga caadadii Soomaaliya ay lahayd weeyaan caadadii la iskugu iman jiray maqaaxiyaha ee 10 dariiq loo istaagayo ee 30 dariiq loo istaagayo weeyaan dadka kale afkaasay wada xiran yihiin waad aragteen magaalooyinka inay haawanayaan gobolka Haysan caasimadiisan maalin dhaweey tagay Wiesbaden way haawanaysaa maynis waad aragteen way haawanaysaa waxaad moodaysaa tusaale ahaan dadka Soomaaliyeed markay arkaan magaalo faaruq ama maran ama cagta ku yartay waxay raadaan niyo maanta rabadaan baa la moodaa dhulka rabadaan baa la moodaa Yurub oo dhan rabadaan baa la moodaa waa taqaanaa Soomaaliyeed waxa weeyaan markaas waxa soo dhan waxa kalifay waa xanuunka coronavirus muhiimadu waxa weeyaan in shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan ilaahay waa la wada leeyahay gaal iyo islaam bay ilaahay waa la wada leeyahay haddana ilaahay waa u kala naxariis badan yahay gaalka iyo islaamka oo ninka ilaahay iyo rasuulkiisa adeecay iyo nin ilaahay iyo rasuulkiisa aan adeecayn de ilaahay uma sinna sida haddana ay tahay ilaahay isaga abuurtay naxariista guud waa wada leeyihiin tagaarna de islaamka iskale